geesigii beddelay adduunka Nikola Tesla wuxuu hindisay mustaqbalka laakiin ku dhowaad cidna imaamin. Geesigan wuxuu beddelay adduunka haddan. Sheekada Nikola Tesla wuxuu ahaa aragti-yaqaan aragti fog oo mustaqbalka korontada arkay ka hor inta aan cid kale ark. Waxa uu ku dhashay meel hadda ka mid ah Arotia. Tesla wuxuu riyoonayay adduun ay korontadu ku jirto oo nadiif ah, la heli karo, kuna faa'iideeya qof walba. Wuxuu u haajiray Maraykanka oo uu u shaqeeyay Thomas Edison, laakiin labadooduba isku dhac. Edison wuxuu taageersanaa koronto joogto ah, halka Tesla uu aaminsanaa in koronto beddelan ay ka wanaagsan tahay. Tesla wuxuu raacay fikradihiisa si aan daal lahayn, mararka qaarkood oo faqiir ah, isagoo maalin iyo habeen ku shaqaynaya shaybaaro yaryar. Tesla wuxuu hindisay koronto raadiyaha Tesla Oil iyo qalabyo kale oo aan la tirin karin. Si kastaba ha ahaatee, badanaa waxaa laga xaday ama aan la siin shafkiisa, ama dadka shaki geliyey ayaa ka dhigay qosol. Inkasta oo uu la kulmay dhibaatooyin, wuxuu sii waday tijaabooyinkiisa, isagoo aaminsan in aqoontu ay faa'iido u tahay aadanaha. Maanta waxaan ku tiirsanahay hal abuurkiisa maalin kasta, guryahayaga, taleefannadeenna, xitaa teknoolojiyadda wirelesska oo dhan waxay dib ugu laabanaysaa Tesla. Sheekadiisu waxay xusuusinaysaa in aragti-yaqaanada dhabta ah badanaa la fahmi waayo, laakiin adkaysigooda ayaa calaamad joogto ah ka dhigaya taariikhda.